munaasabad lagu xuseeyay 23 sano guuradii ka soo wareegatay markii la riday xukunkii gaboodfalka badnaa ee Mengistu Haile Mariam ee dalka Itoobiya ayna soo qabanqaabiyeen jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee galbeedka Canada ayaa lagu qabtay magaalada Edmonton. kulanka waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida Itoobiya oo ka kala yimid magaalooyin ka tirsan gobolka Alberta ee galbeedka Canada iyo gobollo kale. waxaa kale oo ka soo qayb galay xubno ka socday xisbiga talada Itoobiya ayaa EPRDF iyo jaaliyado kale oo isugu jira Soomaali iyo qowmiyadaha kale ee dalka Itoobiya qaarkood. kulanka ayaa looga gol lahaa in la isku xusuusiyo mahadhooyinkii uu reebay xukunkii Mengistu Haile Mariam iyo rajiimkiisii oo cadaadis iyo dhibaatayn joogto ah ku hayay shucuubta Itoobiya haba ugu badnaadeen kuwa gobolka Soomaalida Itoobiya. waxaa kaloo ujeedada kulanka ku lamaansanayd in la isxusuusiyo horumarka dhan walba leh ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu ku talaabsaday. waxaana ammaan iyo kulanka ku lamaansanayd in la isxusuusiyo horumarka dhan walba leh ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu ku talaabsaday. waxaana ammaan iyo bogaadin iyo mahadnaqba loo jeediyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ay jaaliyadu sheegeen in uu toobiyihii horumarka ku weeciyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. xubnihii jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee kulanka ka soo qayb galay ayaa isugu jiray dhalinyaro, haween iyo waliba odayaal goobjoog ka ahaa dhibaatooyinkii uu geystay taliskii Mengistu Haile Mariam oo ka sheekeeyay gaboodfal waqtigii Haile Silaase iyo intii ka horeysay waqtigii Menelik wuxuu waqti madow oo dadka Itoobiya ku nool mandaqadaasi qoomiyadaha kala gedsan ku nool oo ay Soomaalidu ka mid tahay cadaadis xoog leh iyo dulmi iyo caburis uu ka jiro. Haile Silaase wuxuu xukunka ku yimiday si boob ah kadib markii uu inqilaabay Lich Iyaazu oo ahaa wiil boqorkii Menelik awow ahaa. wuxuu Haile Silaase ahaa nin mujrima aad khabiid u ah, khiyaamo badan, calool xun, niyad xun dadka Itoobiyana muddadii uu joogay mugdi iyo jahli uu ku hayay. ummadana hadii mar dhaqaalahana laga curyaamiyo aqoonta laga curyaamiyo dhaqaale iyo horumar midna iman maayaan. taasuu Haile Silaase ku hayay. gobolkeena wuxuu iskuul ka jiray Qabri Dahar baan u maleynaa dugsi ilaa dugsi dhexe inuu ku koobnaa aan u maleynayo. jigjigo oo dhowr galaas oo askarta ardadooda ay dhigan jirtay Diridhawa intaasuu dalkeena iskuulba ka jiray. dadku jahli buu ku jiray. waqtigii Haile Silaase iyo waqtigii Mengistu marka la isku daro ilaa 5 nin oo Soomaali ah waxay ka baxday Haile Silaase University. 5 qof kali ah. waxaan ka xasuustaa Cabdillaahi Bade, Maxamed Cabdillaahi Faarax, nin casoowo la oran jiray oo reer dhagax buur ahaa. Allahu naxariisto kaas waa dhintay isaguna. iyo dhowr nooc kale xasuusnay baan maleynayaa. 5 kama badnayn. halka waxaad ka arkaysaa culayska siyaasadeed iyo dhibka in haysta baad ka arkaysaa. dadkeenu markay ninkii wax bartay wuxuu ordi jiray Soomaaliya meelahaas dadku ordi jiray. anigu kamid baan dadka xagga ortay waqtiga anoo yar. waxaan qabaa Itoobiya waa magac guud oo maxaan ku rahay kulmiya 9 soon ama 9 gobol ee dawlad goboleed ah ismaamul yaa Itoobiya ay ku midaysan tahay. qayb ka mid ayaynu nahay haddaynu nahay Soomaalida. qaybta aynu nahay Itoobiyaanimada markaan leynagama xigo waynu u dabaaldegi karnaa, xaq baan u leenahay inaan soo dhaweyno. innaga ka Soomaali ahaan yaa laga yaabaa inaan maslaxad guud iyo xuquuq maqnayd weligeed inay maaragtay dani inoogu jirtay. marka sidaa iyo la adligeed inaynu u hambalyeeyno xusno dhiirigelino maxaan ku rahay isbedelkii iyo dimuqraadiyadda waa wax meesha ku jira oo laga maarmaana.
dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in laga wada qayb galo isbedelka uu gobolka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tallaabsaday oo ay yiraahdeen waa mid makhraajmo doonta dadku kolba sida uu kala badowsan yahay yuusa isbedelka ula jaan qaadin haddaad aragto ruux isbedelka ka xanaaqsan waa ruux badow oo waxba la jaan qaadi kara haddaad aragto meel horumar ka dhacay waa isbedelun haddaad isbedelkiiba la coltahay horumarka waxaa laga yaabaa inuu ku dhibabo qolaa waxaa jirta ilaahay waa intuu rogay intii la kari waayey oo wax walba lagula hadlo wuxuu yidhi famaa bakad calayhim isamaa walard qoladaas waanu rognay buu yidhi wax u ooyeyna ma jira samad iyo dhulkii midnaba mingista Hayle Maryam iyo xukuumaddii dhergiga waa la bedelay wax u ooyeyna ma jiro waxaan ka raysanin oo Itoobiya jooga saar cidaan ka raysanin ma jirto qaar ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabiye kulanka ayaa muujiyay farxadooda horumarka uu deegaanku gaadhay iyo hiigsiga uu leeyahay waxayna ku baaqeen in gacmaha la isqabto aniga magaca Shacab Abdullahi Bariya oo magaalada Iskanada gaar ahaan gobolka Soomaaliya ay ka wadeen qorshaha abaabulka shirkadda isku taageeraya dowladda deegaanka Soomaaliya taageero ka hana qaaday magaalada Jijjiga iyo taageerana horumarka iyo nabadgelyada ka dhacay wadankaas waxaan rajaynaynaa in shirar badan oo kale oo aad iyo aad uga sii fiican lagu qabsan doono magaaladan aanu ku noolahay joogta dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada soo shirkan ayaan u celinayaa mahadnaq dhammaantood anigoo soo jooga waxaana taageersanahay horumarka ka hana qaaday deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jijjiga ee dalka Itoobiya waana ku mahadsanahay aad iyo aad ayaan ugu taageersanahay dhammaan maamulka waxaan arka saamayaa ninkoo horseeday nabadgelyada iyo cadaaladda maamulka Soomaaliya deegaanka Soomaalida Jijjiga mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo gaar ahaan madaxda siyaasadda oo shaqeysa dhammaantood salaamaya aniga magaca Jacfar Zabalu عوض بالله وسبحان iyo magacayga waxa la dhahaa Farxaan Abduuli Siraad waxaana dhalinyarada ku dhaqan magaalada gobolka Nalbeerta ka dhacaysa xalfada caawa magaalada DDSI waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ka mid ahaa dhalinyarada kala jaaliyada DDSI magaalada qabaqabada ka wadayeen meeshan shirkan waxaan aad magaalada shucuurteeda magaalada faraxsanahay ama magaalada habi ku ahay caawa sida degan xalfada ma dhacday ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shucuurteeda waxaan soo garamaha magaalada waxaan rajeynayaa shirarka kale soo socdaan in sidoo kale ay bixi doonaan fanaaniin Soomaaliyeed oo caan ah oo ay ka mid yihiin Cawaale Aadan Daheeye Cawaale Yare Sinab Laba Dhagax iyo qaar kale ayaa iyaguna xafladda ku soo bandhigay heeso wadani u badnaa oo lagu muujinayay horumarka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laguna gubaabinayay dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar in ay laba jibaarto dadaalka iyo horumarka ay gobolka ku wado sidoo kale waxaa kulanka bilay kooxo dhalinyaro ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ciyaarta dhaantada tumayay waxaana ciyaartaasi ka mid tahay ciyaaraha hidde iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay sida weyn u dhiirigelisay Maxamed Axmed Ilkaacase idaacadda iyo telefishinka qaranka Edmonton